Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabey waa idin salaamay channelkeeni waa Mina Batraan online maanta aan isku soo noqonay waa ii fiicantiina u malayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin annagana waa fiicanahay wax dhib ma laha ilaahayna hanaga koriyo wax dhibe maanta waxaan joognaa wadanka Iiraan waxaan ka hadli rabaa wax la dhahaa honor killing waxaa laga wadaa dhaqanka ka jira Iiraan iyo wadamada inta badan oo carabta iyo muslimiinta waxa loo yaqaana dilka sharafta macnaha dadkii ama familkii ama communitygii sharaftooda waxay ku soo ceshanayeen ama ay ku ilaashadaan qofka ay u maleeyaan inuu sharaftooda wax u dhimayo inaan la dila inta badanna waxaa dilkaas uu ku dhacaa dumarka waxaana u geysta ragga dumarka oo waxaa loo dilaa gabadha haddii oo loo maleeyo inay sharafta reerka ay ku ciyaartay ama ay sharaf dhaawac reerka u geysan haysa gabadha iyada ahayd waa la dilaa dil caadi ah la dili wadanka sharciga ka yaala oo islamic sharia loogana wuu ka waramaa oo la jiraa sharcigaas gacana ku siiyaa mideeda kalena waxaa waaye dowladii iyo sharcigii iyo communitygii ayaa isku raacsan waa wax la isku waafaqsan yahay waxaa waaye ragga communitygaas carabta ayay waxay isu haystaan gabadhooda hadday arkaan iyadoo ama telephone text ay u diraysa nin ama si nin la taagan ama nin rag la hadlaysa wuxuu u arkaa inuu asaga macnaha uu blaameka uu qaadanayo ninka ragga ahay oo reerka wiilka gabadha walaalkeed ama aabaheed lagu eedeeyaa oo la dhahaa gabadhiini sharaf dhaawacay kuu keentay ama sharaftaada meel oga dhacday ama sharafta reerkiina meel oga dhacday ninka ragga ahaa wuxuu isu qaadanaa ama aabihii ama ninkii gabadha qabay ama kii gabadha la dhashay inaa sharaftooda meel looga dhacay marka sharafta reerka sida uu ku soo celin lahaa wuxuu sameynay gabadha iyadaheed waa la qabanaa kurkaa laga goynaa madaxa laga goynaa waa la dilaa waa la tooganaa wax allaahi wixii qofkaas uu ku dhiman lahaa ama waa la gubi ama waa la sumeynay adiga gabadhaas waa la dilaa waana wax la isku ogyahay oo culture dhaqan meesha ka jira waaye marka waxaa waaye sharcigii wadanka ka jiray oo islamic sharia loogi macal dhaqankii ayaa isku waafaqsan marka bishii labaad February 2020 February 2022 taariikh 5 markay ahayd Iiraan waxaa ka dhacay wax aad inta bini aadan oo jirna xale oo qalbi damqanaya leh ay ka naxana waxaa ka dhacay wadanka Iiraan gaar ahaan magaalada la dhahaa Ahvaz ayaa waxaa ka dhacay dil aad iyo aad u foolxun waxaa jirta gabar lagu magacaaba Mona Haydari kolla inta maqashay way maqashay inta aan maqlina hadda aan u sheegaynaa gabadhaas oo da'deeda ay ahayd 17 sano jir ninka dili doonana uu jiro 21 sano oona ay yihiin laba walaalo oo ilmo adeer ah oona isqabtay waxay ka dhacday wadanka Iiraan magaaladeeda Ahvaz dhahay raaliga noqda Ahvaz marka ninkan Sajaad Haydari gabadhan markeeda hore qasaba loogu daray marka iyada uu dili doono 17 sano jirto oo February waxa uu qabaa sanado badan uu saas ku qabaa oo ilaa waxa lagu daray iyadoo jirto 12 sano 12 jir markay ahayd ayaa si qasab ah loogu daray wiilkan ina adeerkeed oo Sajaad Haydari la dhahaa ayaa gabadhan Mona markay 12 sano jirtay qasab loogu daray Mona ama Muno markay 14 sano jirtay ilmo ay u dhashay ilmihii markay dhashay markeeda horena qasab loogu daray Muno gacan qaad dil iyo rafaad iyo dhibaato fara badan uu ku hayo waxay sameysay way baxsatay waxay u baxsatay mid 2021 dhaxbartankeeda marka la joogo waxay u baxsatay u carartay wadanka Turkiga ay u carartay si ay ugu soo nafista
ay macnaha ay dhibaatooyinkan faraha badan uu wiilkan in adeerkeed oo lagu daray oo qaba uu ku hayo si ay uga soo nasato ay waxay u carartay wadanka Turkida xaggaas markay joogto waxay gacanta u gashay nin kale oo cadaadis iyadana oo macnaha dhibaato fara badan u geystay physically sexually wax walba dhibaato u geystay haddana gacantiisa ay ku dhacday markaas Muna waxay sameysay waa soo wactantay waxay aabaheed ay u soo sheegtay aabaheed ay la soo hadashay ku tirahay inay dhibaataysan tahay oo nin uu dhib ku hayay u soo sheegtay Muna aabaheed sidaad ogsootayba waa oday Carbeed oo Muslim ah siba wadanka Iran waxa la yiri waxay ka dhacdaa south west dhinaca oo Carabta ay degto dhibaatooyinkan ay ka dhacaan marka odayga Carbeed gabadhi markay saas ku dhahday wuxuu sameeyay dawladii uu la hadlay safaaradii oo Iran oo joogtay Turkiga uu la hadlay wixii dhan uu sheegay waxa la yiri gabadha sasab kaxee xagga markaad geysana samee ka taqloosi Muna aabaheed la soo hadashay aabaheed u sheegtay dhibaatadii haysay aabaheed waa soo kacay Turkiga ugu imaaday alla gabadhay ma dhibkaanaad ku jirtaa ayaaba waa ku kaxayna wadankii aan ku laabanayna wax dhib ahna ma arkaysid saasa jirta marka wiil Cali la dhaha oo wadanka Turkiga joogay oo gabadhan ka soo hadlay wuxuu yiri oo u soo sheegay wargeyska wuxuu yiri gabadhan ani waa la hadlay Munooy waa ku dhamaatay hadaad ku laabata Iran kollay ma sii noolaanaysid waxa lagu sameeyay dil sharafeedkii lagu fulina olaalay macaanay ma iska carartid misana ma meeshan aad iskaga nagaatid markaas ay tiri aabahay aan u sheegtay aabahay dib badan aan u sheegtay dhibaatadayda horena wuu ogyahay mid hadda liigu hayna waa ogyahay Cali wax dhib iguma dhacayn aabahay ninkii aan ka soo cararay gacanta iima gelinaayo waayahay Muna waa la soo kaxeeyay Iran lagu soo celiyay axfaasa la keenay maalmo ka bacdi kurkeedii gacanta loogu dhigay kii iyada qabay sajaadkii iyo walaalkiis ayaa isu tagay gabadhi qoorteed intuu gooyay taariikhda markay ahayd 5 February markii la joogay 2002 Muna qoorteed inta macnaha madaxeedii oo dhiig ka da'ayo oo daqiiqooyin inta aan videoga laga qaadin daqiiqooyin ka hor la soo gooyay ay ustaas sajaad jidka ula imaaday jidkii dhan umarna halkaas uu sii socdaa markana halkaan u soo socdaa saas ugu gaardina jidkii dhaxdiisa inuu ku gaardiyo uu bilaabay gacanna wuxuu ku haystaa mindidii uu ku soo gooyay gabadhi madaxeedii gacanna madaxeedii ku wada markaas qosla markaas dadkii intay isku soo baxeen loo sabciyay waa nin rage cimrigaada la hadheere long life sajaad Haydari long life waa loo sabciyay dadkaas waxaan ka yaabanahay soo dad bini aadan ma aha mise waa xayawaan soo dad bini aadan ma aha mise waa shayaadiin soo dad bini aadan oo islaam ma aha mise waa kaafiriin I can't even tell dadkan waxay yihiin xasbunallahu wa ni'mal wakiil waxa soo kale ilaahan ka magan galnay adi gabadhii madaxeedii waa la gooyay jidkaana saas loogu dhex waday si ninka isaga ahaana oo iyada qabay oo walaalkeedna marna ahaa sharaftiisa ay ku soo laabato aabaheed sharaftiisana ay ku soo laabata bal sharafta reerkaas ma waxay ku soo noqonaysaa gabar madaxeeda la gooyay ma sharaftooda ku soo noqonay mise haddii si kale loo dhigo sharaftoodii aba dhunto oo waxayba noqdeen dad bahalle oo naxariisna aan lahayn adduun iyo aakhira dad gabay miyay noqdeen misena waxay noqdeen dad sharaf soo cishanaya marka aan isweydiino marka wadamadaas waxaa ka jirta dilalka noocaas oo la leeyahay waxaa lagu soo cishanaa sharafta reerka lagu soo celinaa la leeyahay ka jira inta badanna waxay ku dhacdaa naagaha marmarka qaar nimankan haddii ay ciidaha dadka gabadha laga dilay gabadhi dadka dhalay haddii walaalkeed uu dilay oo aabihii iyo hooyadii ay dhahaan annaga gabadheena waana laga dilay si xaqdarraana lagu dilay gabadheena waxaan u baahanay qofkii dilay in loo iqaabo waxaa laga yaabaa qofkaas inaa la xiro oo la dilo ama la xiro ama iqaab lagu sameeyo dadkii dhiigga lahaa hadday soo sheegtaan haddii aabihii gabadha dhalay uu ka daba hadla waa macquul in la xiro ninkii gabadha dilay haddii aan laga daba hadlin haddii walaalkeed yahay haddii aabaheed uu yahay haddii ninkeed uu yahay
dadki immediate family members oo dhiig iskale the blood owners, if they do not talk and say we want such and such things to be done to this and this person oo naloo xiraan rabnaa hadal aan ka qabnaa hadday dhihin waxaa waaya keeskaas is closed. dowladii ma dhahaysa gabaraa la dilay, gabaraa kurkeeda magaalada lagu dhex waday lama dhahayo. ninka laga yaabo in la qabto booliiska ay qabato kees macnaha oo arrest lagu sameeyo meesha booliiska markii la tagana qofkii dabcan waa la weydiini waa la su'aali. hadduu dhaha gabadhaydan aniga ama kootinia la keenay for example koodkaa la geeyey wuxuu dhahaya ani gabadhan waxaan ku arkay gogol dhaafaan ku arkay macnaha wax oo anshax xumo ay samaysa hadduu dhaha simple and clear wax dambe oo la weydiinaya male ninkaas saasaana lagu soo daynaa. aabahii gabadha dhalay haddii intuu gabadhiisa dilay wax kasta oo yacni uu ku sheego haddii aabahii gabadha dhalay aabaheed biological hadduu dilo aabihii xerig waxaa u yaala 3 ilaa iyo 10 sano oo xerig ah intaas u dhaxayso. 2020gii nin Iranian ah ayaa gabadhiisa ka taqliso oo dilay 8 sano bisaa la xiray waana la soo daayay aabihii. bal ka warrama dadkan gacmaha dhiigga ku wato oo waxbana lagu sameynaynin. adi calaa iyo kulli xaal qadiideena maanta dad badanaa ka hadlay women rights UN oo kii kale hay'ad UN ah oo ka shaqeysa meeshaas magaaladaasayta oo Iran ku taalo oo gabadhan lagu dilay ka howlgasho ayaa ka hadleen. macnaha waxaa la isku soo baxay dad badanaa isku soo baxay maalintii Muna la dilay February 2022gii wixii ka bilowday banaanbaxyo badanaa la sameeyey oo lagu soo afjari doono oo laga codsaday inaa waxyaalahan ona killinkan iyo dilma sharafeedkan la soo afjaro Iran iyo wadamada muslimiinta ka socda qaasatan Iran ka jirto ina la soo afjaro oo xuquuqda gabdhaha la soo celiyo oo gabdhaha xuquuq badan ay yeeshaan ilaa Iran gabadha waxay hoos imaadaan ninka ragga ah asaa u shaqeeyo asaga u hadlo asaga mas'uul ka ah macnaha gabadha sideedaba nolosheeda dhanba ninkaas mas'uul ka ah ama walaalkeed ama aabaheed ama ninkeeda hadal ma leh waa la dili waa la cuni waa la gubi wax walba lagu sameynaa no case. marka maalintaas ka bilaabata 5th of February gabadhan markii la dilay wixii ka bilowday waxaa la sameeyay macnaha ina la isku soo baxay oo NGO-yaashi iyo wixii xuquuqul islaam oo xafaas iyo Iran inteeda badanba ka howlgalayay ay soo afjareen oo ay dhaheen maanta wixii ka bilowday waxaan rabnaa dumarka wadankan inay xuquuq yeeshaan oona lagu dheeldheelin oo sidaan maanta hadda lagu sameynhayo gabadhan madaxeeda inta jidka la keenay ninkan uu qoslaayo ninka isagoo qoslaayo oo hor igadaal saas u waday oo dadkana u sabcinaayo inay leeyihiin long life la leeyahay. marka qisadeena maanta intaas ay ku eg tahay waxaan idinka codsanaa inaad channelkan soo kala kicisiin sheekooyinkan iyo sheekooyin kale oo badan oo xiiso leh oo yaab leh waa la keeni doonaa waan soo gelinaynaa biidnillaahi kariim. hadday channelka hanala kor hana loo qaado hadday kor hana loo qaado like ta saara subscribe hadduu ku subscribe garaysnayn saar sharena dhaha sidaa meelo badan ku gaarno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.